xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadankani Kenya ayaa laga yaabaa inay xasaanadooda waayaan sabab la xiriiriyay laba dhalasho oo ay haystaan waxayna wargeysyada dalkani Kenya ka soo baxa qorayeen in xildhibaanadaasi ay u badan yihiin kuwa salahan ka soo jeeda Soomaaliya Xamza Maxamed ayaa faafahinaya wargeysyada uga caansan Kenya ee Daily Nation iyo Standard ayaa subaxnimadii maanta qoray in 10 xildhibaan ay halis uga jiraan inay kursigooda waayaan sabab la xiriira inay haystaan dhalasho wadamo kale oo shisheeye wararkani oo baryahan dambe la isla dhexmarayay baaraha bulshada ayaa waxa jiray dad khaas oo cadaadis ku saaray hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa dalkani Kenya inay baaritaan ku sameeyaan xildhibaanadaasi la sheegay inay haystaan baasaboor shisheeye inkastoo madaxa fulinta ee hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa Twali Mubarak uu sheegay in dhammaan saraakiisha dawladda la baari doono ayaa haddana ficilkan yimid kadib markii uu Okiya Mutahu u gudbiyay una weydiistay inay baaraan 10 xildhibaan oo la sheegay inay haystaan sharciyo dejiyo hawsha qabtay intii lagu eedeeyay haysashada baasaboorta shisheeye wararkani ayaa haddii uu noqdo arrin jirto oo run ah ayaa waxa laga yaabaa inuu waran iyaga dib uga laabto baarlamaanka iyadoo baarlamaanka Kenya uu khalalaaso galiyay jagada safiirka la doonayay in la siiyo gabadha loo yaqaan Mwenda Mwezi oo haysato dhalashada Mareykanka iyo Kenya waxaana lagu cadaadiyay inay mid u harto kadib inta loo magacaabin safiirka Koonfur Korea ee Kenya hase yeeshee Mwenda Mwezi ayaa tilaawadaasi ku tilmaantay mid sharci darro sidoo kalena waxay dacwad ka gudbisay diidmada baarlamaanka ee labadeeda dhalasho kiiskaasi ayaa maxkamadda dhageysan doontaa maalinta Isniinta ee nagu soo aadan sida ay wargeysyadani dhigayaan xildhibaanada lagu eedeeyay inay haystaan dhalasho wadamo kale ayaa waxa u badan xildhibaano Soomaaliyeed ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari iyo caasimadda Nairobi xildhibaanadaasi ayuu wargeyska ku sheegay inay kala yihiin Aadan Ducaale oo ah hogaamiyaha aqbaliyada baarlamaanka Kenya Yusuf Xasan oo ah xildhibaanka Kamkunji ee Nairobi Safiya Cabdi oo xildhibaanka Ijaara Maxamed Daahir Ducaale oo isna xildhibaanka Dadaab Maxamed Garane Aadan Xaaji Cali Ngusi Nguna Jane Kihara Ladema Olekina iyo Susan Kihiko oo iyaduna senatorka ismaamulka Nakuru wargeyska kale ee Star ayaa isna qoray in Aadan Ducaale uu eedayntaasi si kulul u beeniyay isagoo waliba ku faanay inuu yahay muwaadin Kenyan ah dhiigahan iyo dhalashoba wuxuuna carabka ku adkeeyay inuusan hami u qabin inuu qaato baasaboor shisheeye Aadan Ducaale ayaa lagu eedeeyay inuu haysto baasaboor Soomaali walow isagoo hadalkaasi uu beeniyay sidoo wargeyska tibaaxay Xamza Maxamed RTN Nairobi